munaasabada Ciidul Fidriga ayaa maanta waxaa laga oogay dhammaan xariyaha qaxootiga ee Dadaab iyo guud ahaanba caalamka halka kuwa kalena isku diyaariyeen munaasabada Ciidul Fidriga maalinta berito ah dadka inta badan ayaa wajidooda aan ka dheehanayay farxad iyo damaashada munaasabada Ciidul Fidriga halkani waa xarada qaxootiga ee Dhagaxley waana goobta sidii weyn looga oogay munaasabada Ciidul Fidriga qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay farxadda damaashada ciida ayaa warbaahinta dareenkooda u soo bandhigeen iyo sida ay ugu yihiin maanta ayagoona sheegeen inay soo dhameysteen hal bilood isla markaasna maanta ay aad u faraxsan yihiin runtii maanta ma sha Allah farxadeeda aad u farabadan tahay farxad la koobi kara maaha aad baan dadka muslimiinta meel walba joogeen anigu aan baleynaya awal waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqno meel walba joognaan waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo amalkii wanaagsan ee soo qabanay salaadii sujuudi qiyaamkii rukuucdii aan soo qabanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa inuu naga aqbalo waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta joogaan markooda waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad waxaan ugu tahniyadeynayaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan ciidan barakeysan Ilaahay na soo gaarsiiyay Ciidul Fidriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh bishii barakada badneed ee Ramadaan si muxuu ahay wanaagsan inuu soo dhameeyay la soo haleeshiyay bisha Ramadaan Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii naarta laga xoreeyay ciidan iyo ciidan kale oo badanna na gaarsiiyo inagoo caafimaad qabno nolosheena ay fiican tahay nabadgelyo Ilaahay na siiyo waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad iyo khayr iyo acmaashin Ilaahay ha aqbalo subhanahu wa ta'ala انت كتب ما انت فرحتي aad lama koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay dareenkayga waa zaid Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayna sanadkan sida noo soo gaarsiiyay sanadaha fara badan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo gaarsiiyo waa nimcad weyn oo la koobi karin Ciid mubaarak ciid al-aafiya ما شاء الله aad baan u faraxsanahay maanta ciida ما شاء الله dhamaan muslimiinta waa waliya u diraya aan leeyahay ciid mubaarak ciid al-aafiya sidoo kale waxay salaamo habad u mariyeen saaxiibadooda iyo eheladooda ayagoona ay sheegeen inay maanta tahay maalin farxada salaamaya dhamaan asxaabta muslimiinta meel walba ay joogto salaamaya waxaan salaamay walaalkay Axmed ma sha Allah farxad iyo ciid leeyahay Axmed ma sha Allah wa salaamaya Yanisha salaamaya Caasha salaamaya Fadhiyan salaamaya dhamaan amrna salaam ku doon salaamaya ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta waxaan salaamaya dhamaan ehelada iyo asxaabteyda aad ku jeclahay aabay iyo Shamsudiin si khaas ah u salaamaya insha Allah gabdhaha asxaabteyda aad ku jeclaanaygan waan salaamaya Nimco Shukri Ayaan Abbas Yasmin Ali dhamaan waxaan leeyahay ciid mubaarak inta maqalkayga taqaanana waxaan leeyahay ciid wanaagsan inta kadib waxaan salaamayaa qaraabada iyo ehelka salaamaya dhamaan meel walba ay joogaan gaar ahaan salaamaya aabahay iyo waxaan kaloo salaamaya hooyadeyda Quraysho Faarax Ali iyo aabahayga Aadan Shukri meel walba joogaan dadka muslimiinta Ilaahay nabadgelyo ha siiyo caafimaad Allah siiyo dhamaantood waa salaamaya waxaan sidoo kale aan salaamaya qaraabada iyo eheladeyda gaar ahaan waxaan salaamaya reefmadow dadka reefmadow baan si gaar ah u salaamaya idinkana waa salaamantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحنا فرحنا من نشوفكم بكرامات معها غير الوجود صاحب قضي أهل في قرابة من الوجوان وهو سلام يا نمان من الوجوان runtii farxadan ciidan ay noo tahay waxa uu nasan tahay anagoo soo dhameysnay 29 bishii barakaysnay Ramadaan ayaa subhanahu wa ta'ala wuxuu u marnaystay in bishii barakaysnay meel fara badan laga arko ugu dambeyntii waxaan wareysan la yeelanay qaar ka mid tagaasileeda isla markaasina sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin maanta isla markaasina si toos ah ay u shaqeysanayaan ma sha Allah dhaqaaqatu dunyada alxamdulillah dadka qaar si fiican bay u ciideen أنا كتكسيلي نسيفعنا وش خسرنا ما شاء الله ما عيدي ما كلمة كلمة ما عيدي سيفعنا جاب له كل سنة ما كلمة
bismillah biilka waa laakiin maanta ciid oo kale waa ma sha Allah walaayo waxa gana xaga dheer ilaa iyo adii meel fog waan gana ilaa xagga Soomaaliya tamarmar waa munaasabada Ciidul Fidriga ayaa dadka inta badan isku diyaariyeen iyadoona ay maanta si fiican ay u ciideen waxa jiraan boqolaal dad oo ka qayb galin munaasabada Ciidul Fidriga ayagoona dadkaasi ay sheegeen inay munaasabada Ciidul Fidriga birito ay ku beegan tahay dhanka kale waxa jiraan ayagana dad yar oo ka qayb qaadin munaasabada Ciidul Fidriga Xasan Kaafi Badacas 24 TV xiriyaha qaxootiga Dadaab